Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Language College Hargeysa. I am teacher Warsame. Maanta waxaynu sidaa cashar kale oo muhiim ah. Horta ardayda dhamaantood waan salaamayaa. Khayr badan waan idin rajaynayaa. Arday, maanta casharkeenu is not complicated. It's not that hard. It's very easy. So marka aan casharka maanta aynu guda galno oo casharka aanu eegno. But just before that, in yar ka hor waxaad la rabaa ardayda inaad casharka share garaysaan, like garaysaan, comment garaysaan oo dabcan wixii su'aala exercise-ka ah aad ka shaqeynaysaan dee waan eega ardayda waan ka eega waan ka fiiriyaa ardayga waa saxsan yahay ardaygaas ma saxsana ardaygaas waa isku dayga ayaa ka fiican adigoo aan isku day sidaas ayay wax kugu soo kordhaya waayo haddaad isku daydid wax kugu soo kordhaya so marka arday korka waxaa ku qoran lambarkii haddii aad u baahan tahay faahfaahinta haddii aad u baahan tahay casharo fiican oo wanaagsan luqadaha kala duwan waliba English ma not only English many other languages so marka nagu soo biir arday soo dhawaada warm hands gacmo diiran ku soo dhawaada marka waxaad sheegaysaa your name san isku barano my name is teacher Warsame and what is your name adiga magacaaga ii sheeg I am in Hargeysa and where are you adigu xagee joogtaa anigu Hargeysa jooga adiguna ii sheeg xagee joogtaa san kugu sheegay adiguna ka daaligay u sheeg bal casharka aynu guda galno haddaba arday maanta ma jeceshiin inaad luqadda af Ingiriiska ku hadashaa do you like to speak in English language fluency hadday haa tahay jawaabtaadu casharkan aynu eegina so marka speaking practice waa ku hadalka aad practice garaynaysa wixii isku tijaabinaysa so marka practice waa isku tijaabi weeyaan waa isku tijaabinaysaa marka speaking practice waxaynu haynaa oo xagga ku haynaa waxa weeyaan always hardly often iyo sometimes haddayna macnayo always waa goor kasta hardly waxa weeyaan waxaan badnayn inta badan aanad samayn ba kugu adkaato inta badan inaad samaysid xitaa waqti aan u helin hardly wax adag weeyaan hard bay ka timid kelmadii hard bay ka timid hardly often waa often badi aan ahayn often mararka qaar sometimes ayaa mararka qaar iyaduna sometimes mararka qaar so marka sentence-kan jumladan waxba ka maqan waxa ka maqan inta banaanna waxa la rabaa adiga oo ardaygiiya inaad exercise-ka kuwa aad ku buuxina xagga so marka intaana maxaad samaynaysaa waa practice garaynaysaa so marka waxa aadan oo ku banaan adiga inaad ku qortid go shopping wuxuu tagaa shopping wax soo iibsi buu sameeyaa wax buu soo iibsadaa alaab buu soo iibsadaa she iyadu watch TV iyadu waxay daawataa TV haddaba maxay daawataa ma goor kastay daawataa badi ma daawato mararka qaar bay daawataa intee bay daawataa adaa lagaa rabaa he isagu do exercise wuxuu sameeyaa exercise-kiisu sameeyaa leeliyadiisa iyo jimicsigiisa iyo holiis wixii exercise oo dhanba ayuu sameeyaa anigu sleep late anigu waxaan seexdaa xilli dambe so marka ma badi xilli dambaad seexataa ma mararka qaar baad seexataa mise dhif yarde oo inta badan ba aanad seexanba oo maxaan ku idhaahdaa aad soo jeedid oo shaqadaadu ay tahay shaqo soo jeeda aad qabanaysaanba aad iska soo jeedaysid adiga bal intaynaan casharka dib ugu soo noqonaanba aanan replayga aan casharka inii samayn waxaan rabaa in aad hadhowto le casharka markaan dhamayno tabaaraka wa tacaala insha allah inaad su-aasha ka jawaabtaan su-aasha maxaa ku jira arday laba shay baa ku jira su-aal weeyaan oon raba hadhowto inaad ka jawaabtid oo speaking-kaaga ah iyo kelmadda la yidhaahdo often oo ah casharkeena maanta kelmadahan ku dhiganayno adverb frequency la yidhaahdo how often do you use these words intee in leg oo kelmadahan ayaad isticmaashaa intee in leg baad kelmadahan isticmaashaa adigu ardayo so marka hadhowto la ka jawaabi doontaa marka waxaad samaynaysaa bal casharka aynu haddaba intaynaan sii gudagelin markii labaad arday waxaan kaa codsan inaad casharka noo sheegaraysid comment-kaaga aad nagu qortid casharka jawaabtiisa magacaagana ha iloobin inaad kusoo qortid ood ii sheegtid magacaaga si aan isku barano adiguna waxaad sheegaysaa ardaya oo kale goobta aad ku sugan tahay casharkana aad live-ka aad ka daawanaysid amba casharkana aad nagala socotid ha ilaawin maxaan ku idhahdaa inaad casharka noo sheegaraysid comment-ka iyo like-ta wixii faahfaahin aad u baahan tahayna casharka dabcan waxaad ka helaysaa iyo casharo kaleba
xagga korka lambarka ku xusan. haddaba Aadan go shopping, Aadan wuxuu tagaa shopping. haddaba maxaynu yidhaahnaa ma always baynu yidhaahnaa mise hardly mise often mise sometimes kay baynu isticmaalnaa. Aadan wuxuu tagaa shopping buu tagaa. So marka Aadan waxa weeye haddaynu qiyaasno nin alaab soo iibsi badan ayaynu ku qiyaasanaa. tusaale sin isla garano Aadan wax buu soo iibsadaa inta badan badiba wax buu soo iibsadaa. waa nin alaabas jecel inuu soo iibsado, uu dhar cusub soo iibsado, uu maxaan kula jeestay intaas u jecel. So markaa mid keebanu isticmaalnaa waxaynu u isticmaalnaa balaynu eegno keebanu isticmaalnaa sometimes baynu isticmaalnaa. marka xagga maxaad gelin doontaan inkastoo aniga ayna ii deeqayn sometimes baad gelinaysaa. midda kale talabaad ee xigta waxa weeyaan she watches TV, iyadu waxay daawataa TV-ga daawataa. so marka ma always markasta miyay daawataa? hardly oo mararka qaar in yar marmar mooyaan dhif mooyaan. often miyay daawataa mise sometimes waynu isticmaalnaa. iyadu taa way iska daynaa kelmadda already been used waynu isticmaalnay taa. so marka intaas saddexdaa kale mid keebaad ku buuxinaysaan arday? which one? okay baan isla eegno. she watch TV. haddaba sheedani qoftan waa qof aada u shaqeeya inta badan ma haleesho. marka bal maxaynu ku tilmaamnaa qof aan haleelin TV inuu daawado maxaynu ku tilmaami karnaa? saddexdaa kelmadood waxaynu ku tilmaami karnaa dabcan kelmadda hardly ayaynu ku tilmaami karnaa. kelmadda hardly ayaynu ku tilmaami kelmadda hardly. haddaba qaybtan he do exercise, he do exercise isaga wuxuu sameeyaa jimicsi amba exercise kale ayuu sameeyaa. so markaa maxay noqonaysaa? isagu uu jecel yahay. so markaa hedan qofkani wiilkan waxa weeyaan mid jimicsiga jecel oo aada u jecel. so markaa qofkii dabcan haddii wuxuu jecel yahay muxuu sameynaya? dee badi buu sameynaya, intiisa badan buu sameynaya. so markaa waxa weeyaan always weeyaan always. he always do exercise, isagu markasta waxa uu sameeyaa exercise buu sameeyaa. he always do exercise. arday ha ilaawin inaad casharka noo sheekaraysaan. dabcan intaanu ka jawaabnay iyo intaynaan ka jawaabin bal waxaad samayn doontaan arday bal inaad idinkuna isku daydaan casharka. su-aasheeda ugu dambeysa aan qabo ama su-aasha ugu dambeysa aan doonayo inaad ka jawaabtaan waxa weeyaan how often do you use these words? intee in leg ayaad isticmaashaa kelmadaha? jawaabteeda adaan kaa rabaa adigoo isticmaalaya inta. I always use these words, I hardly use these words, I sometimes use these words. idinkoo intaa isticmaalaya oo speaking garaynaya oo practicekii speakingka sameynaya ayaan idinka rabaa inaad commentka kusoo qortaan. dabcan kuma maqlayo laakiin waad isku day adiga isku day bal inaad speaking practice-kan aada samaysid. haddaba su-aasheena ugu dambeysa ee cashirkeena waxa weeyaan I sleep late, anigu waxaan seexdaa goor dambe. I sleep late. so markaa maxay noo hadhay? often bay noo hadhay. I often sleep late, mararka qaar baan seexdaa. I often sleep late, yani in yaroo la tirin karayo oon badnaynba ayaa ma seexdaaba. I often sleep late. so marka xagga maxaa gelaysa? often baad gelaysa. often ayaa gelaysa. I often sleep late, intaan seexdo often mararka qaar aan xil dambe seexdo wey maaha hore u seexdo. dabcan bilaa hurdo ma noqon karayno. so markaa su-aasheena ugu dambeysa waa maxay? su-aasheena ugu dambeysa arday waxa weeyaa how often do you use these words? anu maanta su-aasha markaan ku weydiinayay taasaan ka dhex isticmaalay sidaynu maxaan ku idhahdaa aynu u garano exercisekiina aynu u sameyno. is very important to always do the exercise. inaad exerciseka markasta samaysid waa mid adiga kuu muhiimsan oo practice garaysid. learn how to speak, learn how to use words, so it will be easy for you to speak. way kuu fududaanaysaa haddaad kelmadaha isticmaashid adigay kuu fududaanaysaa. it's going to be easy for you and you're gonna be understandable. qof la fahmayo oo luuqadda la fahmayo markuu hadlayo ayaad noqonaysaa.
so markaa never be ashamed to make a mistake. Ha ka khashilaan ba ha ka xishoon inaad khalad samaysid. Try it first. Horta isku day. So markaa, how often do you use these words? Intee in leeg ayaad isticmaashaa kelmadahan? Jawaabtaada waxaan kaa rabaa jawaabtaada adigoo isticmaali always, hardly, sometimes. Intaasaan rabaa inaad jawaabtaada ka dhigtid. Arday waxaynu soo gaadnay gunaanadkii iyo gabagabadii casharkii. Waa anigoo macalin Warsame Language College Hargeysa. dabcan intaynan casharka ka bixin waxaan idinka codsanaya arday inaad magacaaga ii soo qortid oo comment-ka igu soo qortid iyo goobta aad ku sugan tahay. As I said before, my name is Teacher Warsame and I would like to know your name. Waxaan jeclaan lahaa inaad adigana magacaaga barto. I am in Hargeysa and I would like to know where you are. Waxaan jeclaan lahaa inaad ogaado meesha aad ardayda ku sugan tahay oo casharka nagala daawanaysa amba casharka aad nagala socotidba. Wixii faahfaahin aad u baahan tahay dabcan waxaad ka helaysaa lambarada korka kuugu xusan. waxaynu soo gaadnaysaa inii sheegay gunaanadkii iyo gabagabadii casharkeena. waa anigoo macalin Warsame. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.